kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka warbaahinta ana TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah Puntland oo faahfaahisay sababta ay u xireen xafiisadii ay furteen wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda deegaanada Puntland waadin Soomaaliyeed oo lagu dilay magaalo ka tirsan dalka Jarmalka Yusuf Garaad oo sheegay in ay qatar ku jirto badda Soomaaliya kadib markii maxkamadda caalamiga ah ay dib u dhigtay kiiska badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ujeedka dawladda Soomaaliya hubka farabadan ay uga dejisay Hobyo bixinayaan idinkaga haynaa maxay yihiin warqadaha kala duwan ee ka socda ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska oo u diray Brazil saasina waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn ee warbaahinta ana TV waa 20 Oktoobar 2019 warkii oo faahfaahsan maamulka Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyay sababaha ka dambeeyay in ay xiraan xafiisyo ay deegaanada Dhahar iyo Galdogob ay ka furteen wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiirada xafiisyada la amray in laga xiro ee deegaanada Puntland ka furtay ayaa waxa ay kala yihiin wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xildhibaan Saadiq Warfaa oo sanadii 2017 furtay iyo waliba wasiirka qorsheynta Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan oo maalin ka hor isagana furtay wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Maxamed ayaa sheegay in Puntland aysan joojin xafiisyo horumarineed in laga furto deegaanada maamulka Puntland hase yeeshee in xafiisyada ay joojiyeen furitaankooda ay ahaayeen kuwa lagu lahaa dano siyaasadeed isla markaana marnaba aysan aqbali doonin arrimahaasi oo kale si kastaba wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ayaa war xalay ay soo saartay waxa ay ku mamnuucday in xafiisyo ay ka furtaan deegaanada maamulka waa Puntland ee ururada iyo waliba shakhsiyaadka dawladda federaalka ka tirsan meydka wiil Soomaaliyeed ayaa waxa laga helay magaalada Buleen ee gobolka Sachsen wadanka waxaana uu ku geeriyooday dhaawac ka soo gaaray toorey lagu dilay booliska Jarmalka ayaa waxa ay sheegeen in wiilka Soomaaliyeed oo ay ku tuhunsan yihiin in uu ka dambeeyay dilkiisa shakhsi kale oo Soomaaliya sidoo kale dad yaqaanay wiilka la dilay ayaa waxa iyaguna ay sheegeen in dilkiisa uu ka dambeeyay wiil kale oo saaxiibo ay ahaayeen isla markaana inta badan ay wada socdeen wali lama shaacin magaca wiilka Soomaaliyeed ee Jarmalka lagu dilay iyo shakhsiga ka dambeeyay dilkiisa yeeshee booliska dalkaasi waa Jarmalka ayaa waxa ay sheegeen in ay ku raad joogaan qofkii ka dambeeyay falkaasi hase kastaba inta badan Soomaalida ku nool qaar ka mid ah wadamada caalamka ayaa waxa ay la kulmaan dilal joogto ah waxaana dilalkii ugu dambeeyay ay ka dhaceen dalalka Ingiriiska Jarmalka iyo Koonfur Afrika Yusuf Garaad Cumar wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa si kulul uga hadlay arrimo mugdi ku jiray oo ku saabsan dacwadda badda isagoona dhaliilay qaabka dawladda Soomaaliya ay u maamulayso kiiska dacwadda badda qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu ku sheegay in dawladda Soomaaliya warar faahfaahsan oo sugan aysan ka bixin bulshada Soomaaliyeedna aysan u gudbin waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in markii hore guddi farsamo iyo waliba qareeno ay amatali jireen Soomaaliya hase yeeshee markii ugu horeysay uu siyaasi ka qayb noqdo ay tahay hadalka Yusuf Garaad ayaa ku soo aadaya kadib markii maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ay dib u dhigtay dacwadda u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya oo ay dawladda Kenya ku muransan tahay in ay badda iyadu leedahay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay hub farabadan ka dejisay dekedda magaalada Hobyo ee gobolka Mudug hubkaasi oo lagu geeyay doomo dheereeya dadka degmada Hobyo qaarkood ayaa waxa ay sheegeen in ay arkeen hubkaasi oo ka soo degaya dekedda magaalada isla markaana uu yahay mid aad u farabadan saraakiil ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa dhinacooda waxa ay sheegeen in hubkaasi loogu talagalay ciidamada taliska qaybta 12aad ee ka howlgasha deegaanada Galmudug ee dagaalka ku jira Al-Shabaab ciidamada qaybta 12aad ee dawladda Soomaaliya ay dib u dhis xoogan ku sameysay ayaa u diyaar garoobaya howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab sida ay dhowr jeer sheegeen saraakiisha hogaaminaysa dawladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer waxa ay sheegtay in ciidamo fara badan ay geysay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug halkaasi oo muddo 10 sano
ka badan aysan ka howlgelin hay'adaha amniga Soomaaliya balse haatan ay ka howlgalaan. Intaasan ku soo gabagabeynaya wararka warbaahinta Ana TV oo aad si toos ah uga socoteen anigoo Faisal African oo idin la socodsiinayay. Haddii aad ku cusub tahay channelkan fadlan subscribe saar kambalelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee mar walba soo gaara wararka aan halkan ku baahino. mahadsanid.